ووقت بدن إيداد بدن بالسيو إن كهذلان محيا لي وحلقة هذا وحويان دينتا دولة سيدا لوجا بهاي إن إلى الصه والله بشيء وقال دولتنا وأودي عن لهين دينتنا ورأس مال كيني مركز علاقة كذا حيث اللي وضع الشيء وعلاقة رنتي مهمة إلا فهمه فهم لأنت كثرت موضوع علاقة كذا حيث دينته هي الدولة ده فهم لأنت فهم الآن عاموي هذا أوران كرا مشكلة لها كجري أدون كمانتي ومشكلة وين بالأوران كرا وملا بدن كثرته وضمض آدي إسكوها هايستان ذلك مفكرين تا إسكوها هايستان مسلم يقال إسكوها هايسته ويان أنا وحدنا صومالنا هاي دولة ملهان جرين دولة كهر دل جيران وين جوجني ما أنا مغلين دولة كهر دل جيران ما لهين وحنا واردين هي أو نكلا حكومة هي أو نرشنا مامولة هي وديال رقمات هي علماء هاي markii dawladda ay timid dawladdii timid wixii jiray oo ka horeeyay kama faa'iideysan waxay isku dayeen inay fakarka galbeedka iyo dawladda cusub ka jirta wadamada galbeedka inay ku daydaan bay isku dayeen ayagoo aan fiirin farqa u dhaxeeya dawladaha galbeedka iyo bulshada Soomaalida dawladaha galbeedku diintoodu waa ka tagay meel iska dhigeen go'aankaasi gaareen in diinta laga tago bay go'aankada gaareen ama in diinta nolosha laga saaro ay go'aankada qaateen waana ku dhaqmeen dawladaha galbeedku dawlado oo dhaqameed lama ah maxay qabaa'il ma laha marka bulshooyin kale wax ka socon kara laakiin Soomaalida aan ka socon karin haddii ka soconayaan u baahan in dib loo habeeyo ayaan laga fiirsanin marka ayadoo sideedii ayaa jug la soo siiyay wala oran kara ama shaati aan lahayn baa naloo galiyay ayadoo loo baahnaa in la eego waxaan aan soo qaadanayno to anagu ka hor maxaan haysanay wixii ka hor aan haysanay waxaanay xageeba iska qaban karaan lama fiirin marka ilaa hadda waa taagan tahay siraaca ka dhaxeeya wixii la keenay iyo qabiilkii way haystaan ilaa hadda qabiilku waa hari la'yahay dawladdu ku maran yahay qaraf dawladdiina waa ka fakan laada maxaa yeelay meeshay iska gali lahaayeen baa maarad ayaan la daaweynin si kastoo la yeelo qabiilkii dawladdu waa ka hari la'yahay jilaafayn inta uu jilaafaynaya maxaa yeelay xaqiisii u raadinaya moogta saas oo kale diintiina maadaama aysan qaybteedii ka helin ama meesha ka gali lahayd aan si fiican loo habaynin ayadiina waan ugu rafanaysaa ilaa hadda marka waxa dawladdeenu la xanaqaali laadahay oo bulshadeenu la xasiil laadahay oo maaragtay loo dagi la'yahay waxa weeye ma fahamkii dawladeed oo la keenay iyo wixii ka hor jiray oo isfahmi la'way qabiilkii noo dhisnaa iyo diintii noo dhisnay dawladda ka hor iyo dawladdan la keenay oo cusub oo say u eg tahay Talyaaniga Ingiriiskuna bareen meeshay iska qabsan lahaayeen baa maaragtay way isqaban la'adahay horta ciladu halkaas aan u maleynay aniga waana meesha u baahan in mufakkiriinta iyo culimadu aqoonyahanku ay ka hadlaan si loo saldhigto wa ilaa dagaalkaas waa soconaya ilaa haddana waxna baabiinaya oo marba meel maraya oo marba maartay naduminaya oo marba dad leynaya marna qabiilka ayaa muuqanaya horseedahaya marna magac diineed baa horseedahaya mushkiladda almuhim qabiilka iyo diinta oo dawladda ka horeysay booskoodii iyo meesha la dhigi lahaa iyo sida isku la fargelin lahaayeen ayaga dawladdu xal bay nooga baahantay waxa moodaa marka waxa naga dhex guuxaya diinta yaa laga tagin oo war jira ah iyo war kale oo ah diinta meelaha la iska dhigo asna warka maartay war kale jira baa dhici karta maxaa yeelay qofka Soomaaliga ahi adduunka waxa ka jira uu ka warqabaa marka mafaahiimtii aragtida adduunka taalay ayaa naga dhex maartay naga dhex guuxaysa wali inta isku nimid lama go'aan gaarin oo ummadda meelo tilmaamin tan kale waxa weeye
waxaa ka dhasha marka waxaa noo caddaan waayey waxaan aan rabna maxay yihiin waa noo caddaan weydi hadda maalan nimanka shabaabka ama fikirka noocaas kala oo diinta sida xun u fasiraya oo diinta sida xun u adeegsanhaya oo inaan la dagaalno ay naga go-an tahay waxaan la dagaalamay xataa nooma cadda waxaan la dagaalamaynaa maxay yihiin nooma cadda waxaan rabnaa maxay yihiin nooma cadda waxaan diidaynaa maxay yihiin nooma cadda marka aragtida xataa cadowga aan la dagaalamayna aragtidiisa lagama midaysna qaar waa shabaab bay ku leeyihiin qaar waa diin bay ku leeyihiin qaar waa wadaad garle ay ku leeyihiin qaar waa gabadh xijaan bay ku leeyihiin qaar waa niqaab bay ku leeyihiin waxaan xagee naga jiraan marka qof aan garanayn cadowgiis meel ka jiraba see u dagaalami karaa walidaalika waxaa weeye siyaasaddeena warbaahintu nooma saxsana maalan dadka waxaan u sheegayno dadka yaan u ammaanaynaa dadka yaa loo caayahayaa nooma cadda mar shiikha baa la keenayaayo dadka wacdiya oo diinta laga hadlaya mar gabar haysaysa oo qaawan baa la keenahayaayo halkaas maaragtay maxaan ku rahay isruxaysa keebaa saxa marka labadooda keebaan rabnaa keebaan diidana ma kala cadda marka waxaa weeye dad siyaasadooda baleynkooda warbaahintu aysan saxsanayn baleynkooda tacliintu aysan saxsanayn waxay doonaan aan garanaynin dadkaasi meel ma gaari karaan waxaan kusoo khatimayaa diinteena haddaan u noqono waxay noo sheegaysaa dadka muslimiinta hadday dowlad helaan ama ay maamul helaan ama ay awood helaan sida yeeli lahaayeen baa inoo sheegaysaa awood haddii la helo see awooddan loo isticmaalaa awoodda see u adeegsanaa ilahi wuxuu leeyahay walayansurana allahu man yansuru ina allaha laqawiyun casiiz الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلهي وحو قرقارة يا كو قرقارة كواس وكوه مركو إلهي أود سيو oo dhulka ay dagaan oo ay makansadaan oo isku aadan tahay awoodda la siiyay u adeegsada inay ilaahay ku caabudaan inay xaqullaahi gutaan inay xaqunaas gutaan waa khulaasada aayadda weey aqaamu salaa wa aatawu zakaa wa amaru bil ma'ruuf wa nahy anil munkar macnaheedu waxa weey guud ahaan waa xaqullaahi xaqunaas weey oo la soo koobay bay gudanayaan marka awood indhala oo waxay qabatay aan garanaynin oo marna sheekh faalinaysa marna gabar nikinaysa faalinaysa awood wareersan way awooddaasi awoodii ilaahay rabay maaha awooddu waa inay indha yeelataa la rabaa aayadda kale ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu nagu caddaynayaa inuu laba shay soo dejiyey mid waa kitaab midna waa birta buu ilaahay leeyahay laqad arsalnaa rasuulana bilbayinaat wa anzalnaa macahum alkitaaba walmiisaan ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إلى حليهي صادرني أنبياء صادرني يا رسول كتاب يا عدالة بيسيدان ضد كان وحنا وسخرني وأنسيني بر مركب برتا وأنعم عليه كسيي أودك الرجانته أودنا والوسيي كتابنا والوسيي labadaa shay sidii loo maamuli lahaa ayaa adduunkuna ka khaldan adduunkuna waxaa ka khaldan awoodda la haysto iyo hanuunka la haysto sidii la isku aadin lahaa oo ka khaldan marka awood hanuun la-aana iyo hanuun awood la-aana midna ma soconayo marka annaga maantay xoogaa awoodaan haysanaa haba iska yaraato laakiin hanuunka waa naqaanaayo waa noo qoran yahay kitaabkii waa noo qoran axaadiis waa noo taale diintii baa noo taala waan garan la'ana sidii aan iskugu aadin lahayn baan garan la'ana midka mudnaanta leh baan garan la'ana marka waxaa weeye inta aan kala garan la'anahay awoodda iyo hanuunka sida loo maareynayo sida loo maamulayo aan garan la'anahay waan inaga qasan tahay oo awooddu indhala'dahay ama hanuunkii tabar la-yahay meena la gaari maayo وأنا فهمناه مدنانتا يا إسكاله أود يا هنون كمتكابة هرينا يا كلا واردينا يا وحلا واردينا يا هنون كلا واردينا يا
isaga loo adeegaya hadday kharash tahay hadday lacag tahay hadday awood tahay hadday military tahay hanuun iyo akhlaaq iyo qiyam ba la waardiyeynaya laakiin macnuhu ma aha in hanuunkii la baabi'iyo si awood loo dhiso hadda shabaabka oo kale waxay isticmaalayaan awood bay isticmaalayaan hanuun ma hayaan awood cabsi gelin waxlayn qoor jarid bay isticmaalayaan laakiin hanuun iyo akhlaaq iyo qiyam ay waardiyeynayaan oo maanta laga dayan karaa ma jirto marka awood indhala oo dadka ku cabsiisa muuqaalkeeda iyo muruqeeda meel lama gaadhiso waa ku dheeraaday marka waxaan isleeyahay waxaan tilmaamayay ishkaalaadka jira waxaa ka mid ah arrimaha sidii loo maareyn lahaa oo loo maamulin lahaa isku aadin lahaa iyo siday isku qaban lahaayeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu